هذا نما نو سيده wax loo islaaxiya qodobkaasi marka la yiraahdo dadka hal la islaaxiyo oo islaaxa laga shaqeeyo fiqhi bay u baahan tahay faham bay u baahan tahay labadan kooxeed ee islaynaysa ama labada qabiil ee islaynaysa see loo islaaxiyaa see loo heshiisiyaa jidkee loo maraa dhibaatooyinka isu geysteen see lagu xalliyaa shariicadu jid bay ka leedahay nidaam bay ka leedahay wax yaraadna wax ka tilmaano waxay leeyihiin dhowr jidba waa lagu xallin karaa jidka koobaad waxa weeye dadkani hadday dhib isu geysteen dhibkay isu geysteen dadkan islaaxinaya dhexdhexaadinaya inay qaataan iyaga culayska مثلا waxbay kala dileen xoolay kala baabiyeen waxbay kala qabaan si mushkiladu u danto dadkan wax islaaxinaya u dhaxeeya iyagu inay qaataan mas'uuliyadda dhiigii iyo xoolihii meesha ku burburay sidaana wax lagu heshiisiyo waxa weeyaan waa midda nabigeenu sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamayo حديث رسول كتب حديث قبيصة بن مخارق كو يميد في صحيح مسلم روحا إنو ضدك وحويديستو أو بريوتمو وحاران إلا صدح روح مهم النبي صلى الله عليه وسلم صدح روحا وحاو بنان انت ضدك هوريستاغان إنا يداهدان ورها لا يعاويو صدح لا وحا كم ذا رجل تحمل حمالة فيسأل حتى يجد حمالته ثم يمسك روح دد هشيسيني أو عليس قاضي إلى عليس كاسي ويسكجديو ددك إنه ويديستا وبنام بو نبي صلى الله عليه وسلم ويدعدا أو دقن كوين نقانا ما لدو هذا وح نيروبي نوويم رج أضياله هو كان كدقن كمدها والله برهر الصومالي أو ميل تولا يسكدلي waxay soo qaadeen 1800 halaad miya 1800 halaal bay wadan tunka u saaran meelo badan bay soo mareen Nairobi bay yimaadeen waxay dhawarnooyo bal geelan la qaado oo 1800 halaad xagee ka bixinay kulay wax ilaahay waa u fududay wax waa heleen umaleyn ma inay wada heleen marka xamaaladaasi wax weeyaan waa wax shariicadeenu jidaysayo nooc waxay ka mid tahay dadka lagu islaaxiyo oo maslaxada lagu qaato waxa kamida sida uu tilmaamay Sheekh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah an ya'fuwa ihda at-ta'ifatayn aw kilahuma an ba'd ma laha inda al-ukhra min ad-dima'i wal amwal labada dhinac ishaya inay midkood ka tanaasushay cafido wixii ay qolada kale ka qabtay haday dhiigtahay iyo haday xoolo tahayba annaga ilaahay ku hadhayna wixii nagaga maqan waa iska cafinay way samayn karaan waana midaan soo tilmaanay oo fiican faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duruqda waxa kamida waa midda saddexaad an yuhkama baynahuma bil adli inayna qolana tanaasulin cid culayskii qaadatana la helin marka in lagu kala saaro cadaalad lagu kala xukumo seeba cadaalad lagu kala xukumaysa in noqonaysa fayunzaru ma atlafatu kullu ta'ifatin min al-ukhra min an-nufus wal amwal qolo walba waxay takale u geysteen oo ama naf ay dileen ama xoolo ay qabaan aba la fiirinaya tani imisay qabtaa tan imisay qabtaa tan maxaa laga qabaa tan maxaa laga qabaa labada dhinac fayataqaasani markaasay kala goosanayaan yani sida ay u kala qabaan ayaa la isu tuuraya tan مثلا 10 nin bay dishay tanna 10 nin bay dishay sooma waa la isu tuuraya 10 iyo 10 way soo nimanna konton geelay qabaan kolonna konton geelay qabaan waxba inaguma kala maqnaa sooma aan kala faataxaysan aan ducaysan فيتقاصان هذي مركز waxa ku kala maqan siman yihiin waa la isu tuuraya الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان بالغ فسرا هذه لبدي قوله إسهاي ميدي أي وحلا ديرتها تكله
وإذا فضل لأحدهما على الأخرى شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان تن ديريغا ودتا waxa ku maqan waa inay guddo tan wax la dheeriyahay wax ka maqan yahayna waxa ka maqan waa inay tartiib u gudato xaqeeda si wanaag ku jira u raadsato taa waa markaasi maxaa loola dhaqmayaa marka waxaa loola dhaqmayaa kooxaha iyo qabaa'isha iyo cid walbo iskaashato oo isku garab ah waxa laga soo qaadayaa sidii hal ruux oo kale kooxdana isla tahay kooxdana hal ruux oo kale isla tahay waxay kala qabaan waa la suridayaa wixii dheeraad ee ku kala maqanna waa loo kala xukumayaa kadibna si tartiib ay u kala raasanayaan طيب sharti ma aha marka maadaama koox iyo qabiil iyo group la isu hayo sharti ma aha dhibkan dhacay ruuxii geystay oo kooxda kamid ah ama kooxda kamid in la ogaado sharti ma in la yiraahdo kumu aha kii hebel dilay ee kooxdan ka dilay kumu aha dhiigan ruuxii dilay ruuxii daadiyay kumu aha xoolo hebelkii burburiyay uma baahna waxa loola xisaabtamayaa koox iyo koox hoos loo sii raadin maayo markay kala gudanayaan koox iyo koox bay u kala gudanayaan qabiil iyo qabiil bay u kala gudanayaan wixii kala maqanna saasay isula raadsanayaan laakiin la raadin maayo qolada gudahooda yaa dhibka geystay iyo qolada gudahooda iyaga isqaba ayaga isu qaba saasa macnaha loo kala saaray طيب sharti ma marka ruuxii يعني كون إن لقوا أجاده جودها كون إن لقوا أجاده حبل لازمة وحليه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل كي كعنت لها لفهانتي سيام الله كرنين با لأن الطائفة الممتنعة بعضها ببعض كالشخص الواحد مربع هذي إسكاشانيان oo isu dagaalamayaan oo isu hiilinayaan oo koox isku yihiin hal shakhsi oo kale laga soo qaadaya hal shakhsi oo kale qoladana hal shakhsi oo kale qoladana hal shakhsi oo kale saas loola dhaqmaya wabidalika qawlu ta'ala ba arinda daliilu ah kutiba alaykum alqisas fi alqatla alqisas wahwi wa kala goosiga isu tuurida waay oo waxay ku timid bulay sida yaani mufassiriinta salafku ay tilmaamayaan kooxa islaayay oo wax loo kala goynayay bay aayadu ku timidoo qisaastu saasay ku timid isu tuura wixii la isla dheer yahayna hal isu celiyo طيب hadii la garan waayaba waxa la kala qabo wuxuu dhan yahay ba la garan waayo la way dhici kartaa Sooma see la yeelaya marka wuxuu leeyahay fa in kana yajhalu adad alqatla aw miqdar almal tirada la kala dilay lama yaqaan xoolaha la kala qabana lama yaqaan maxaa la sameeyaa marka wuxuu leeyahay ju'ila al-majhul kal-ma'dum wixii la garan waayo waxaan jirin oo kala laga soo qaadayo wixii la garan waayo tiradiisa lama yaqaan qiyaastiisa lama yaqaan qadarkiisa lama yaqaan waa dad bal iska dilay xoolaha la iska baabiyay wixiina la garan maayo waxba laga soo qaadi maayo marka waxay noqonaysaa marka المجهول كالمعدوم قاعدة صلى الله عليه وسلم وحي لقرن واي وحان جيرين oo kala laga soo qaaday sidaas marka lagu heshiisiinay طيب waxa iimaanaysa mar kale hadayna laba qodob qol waxba isla qirsanayn oo isku inkiraan dhiigan waad naga qabtaan iyo idin kama qabno maxaa la sameeyaa marka waxa la sameeyaa marka ijraa'aadka iyo dariiqa la marinayo wuxuu leeyahay dariiqi shariicadu martay khusuumaadka iyo dadka wax isku haystaa la marinaya marka oo muxuu yahay midda wax sheeganaysa waxa la leeyahay cadaynkeen marxaati ma haysa waxaana sheeganayso cadayn ma haysa haday tiraahdo ma waxa marka la sameeyaa tan kale ayaa waxa la leeyahay ma ka dhaaran haday yiraahdaan ma dhaaranayno dhaartii baa la celinaya qoladii wax sheeganaysa lagu celinaya waxa ma dhaaranaysa inaad xaq leedihiin haday dhaartaan marka way yeelanaya haday dhaaran waayaan oo qoladana dhaaran waayaan qoladana dhaaran waayaan
markaasi waxay noqonaysaa xaq waa dhacaya sida culimada qaarkood ay qabaan process marka waxa weeye procedure-kaas iyo dariiqaas marka la marinaya haday wax isku sheeganayaan wixiina uu san cadeyn ayadana waxa la marinayaa dariiqa shariicadu ay ugu talagashay khusuumaadka allahumma hadii lawth la helo lawth waxa weeye waxa qoladani sheeganayso jiritaankiisa wax calaamo aba muuqda laakiin aan gaarsiisnayn heer cadeyn aan gaarsiisnayn مثلا nin baa la dilay xaafadooda lagu dhex dilay tuhma jirtay colaad baa jirtay xaafadoodii baa meedka laga helay waa lawth baa leeyahay calaama muuqata taasoo kale marka waxa la leeyahay qoladan wax sheeganaysa waxa la leeyahay dhaarta ayaga marka dhaarta la siinayo konton inoo idinka kamid ah dhaarta xaqana yeesha waatii yahuuda nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri magaalada Khaybar ayaa nin saxaabada kamid ah oo la dilay baa xaafad laga helay nimankii walaaladii ahaa ayaa waxay yiraahdeen dhiiga waxaan ku sheegaynaa yahuud nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam cadayn miyaad haysaan maya de yahuud baa idin dhaaran markaas waxay oo yahuud dhaarteedu yahuud ba weeye ma dhaar yahuud baanu anagu ku xisaabtami karnaa way iska dhaaranayaan rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam dhaarun baad ku leedihiin ama ku qanca masalada lawdku marka waxay ku imaanaysaa calaamad tuhma keeni karta hadii la helo marka waxa weeye kuwa dhiiga sheeganaya konton nin oo kamid la dhaarinayo marka kadib haday dhaartaan xaq waa yeelanaya shariicadu marka waxay ugu tala gashay waxyaalaha noocaas ee la isku qabsado dhan kulli waxay kala leedahay shuruuc bay kala leedahay wax ka maqan ma jirto diinteena hadda goor waxa dhacday muxuu ahay Mandera waanagii culimada aan waa kiis ka galay laba reero waa isku dhacay dawladda xalin weyn odayaashii dhaqanka xalin weyn waxa la yibal culimada lagu dayo waanagii galay bil baan Mandera fadhinay ilaahay waa lagu guuleeyay bifadlihi xeer baan marka dajinay ay reeruhu ku wada joogaan oo waxyaalaha khilaafka keenaya buug baan ka sameynay buugga marka dambe dawladdu waxay u bixisay umal court bay u bixiyaan umal court yani culimada ana oday u ahaa marka buuggi isaga markaan soo diyaarinay oo intaan labadii qabiil heshiisiinay dawladdii u yeelnay madaxdeedii xafladii saxiixii aan ugu yeernay ayaa dawladdu intay akhriyeen buuggi ba waxay yiraahdeen xageed ka keentay shuruucdan ma loo yaraatay shuruucdan in lagu wada dhaqmo oo qabaa'ishu ku wada noolaadaan oo wax isku tuhmaan oo sida lagu xaqiijinayo oo say biyaha ku wada cabi lahaayeen say xeelasha say wada daaqi lahaayeen wax xageed ka keentay marka waxaan ku niri waxay dhaan kimilla yani waa dhaqanka bulshada يعني dadkan waa dad islaama muslima diintooda iyo kutubta diintooda ku yaalaan shuruucdani marka yani waxay u baahan tahay nidaam waxa jira diinteenu waxyaalahan dhacayo oo dhan bulshada dhex maraya haba yaraatee waxayna xeer ka dajinin male laakiin mushkiladu waxa weey inagii baan aqoonin xeerarka wax lagu xalliyo inta wixii markii ay suuroobi weydo oo intaasoo inta la soo maro xalku imaan waayo markaasi waa marka u dambeeyo markii daawo la waayo waa in dab la isticmaalo markaa yaa cudurkii daawo waa loo waayo Soomaa waa in la gubo oo marka maxay noqonaysaa gacan meeshii marka awoodi ka jirto nidaam ka jiray marka wax weeyaan labada dhinac midka gardaran oo heshiiska diidan marka wax weey in lala dagaalamo waayo فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل مركا أود بيوبان تامر ومدان شيء إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن dadka qaar waxa jira ayna diinta iyo ilaahay ka baq iyo aqli iyo muxuu ahay damiir iyo midna uusan celinin laakiin baqdin u baahan halka marka waxay u baahan tahay in awood la isticmaalo oo nidaamkii iyo dawladdii awoodii jirtay ayna u turin markaa meesha iyada ah dad baa markay saa u dhacdo xal kale inta la waayo
nidaamka jira ay tilaabo qaado yaa waxaad arki qayla ka xays mar dambe oo aanu kiisas noocaas oo kale ku jirnay ayaa markii laga qoostay bay dawladdu waxay yiraahdeen military baan gelinaynaa military-ga waa taqaanaan kiyo meeshii la geliyo bas waay ya burburi ya dil wax la waxay arkaan bacagtay marinay dhiig baa daadanaya marka reerihii waa hubaysan yihiin waa la soo hubursanayaa khatar baa lagu jiraa gacanta hadday isa saaraan tobanaan baa dhimanaya markaas oo kale ya markaas oo kale awood bay u baahan tahay in guri la burburiyo oo chief la garaaco oo islaan la garaaco oo muxuu ahay la kala eriyo iyo inay islaayaan oo dhiig daato kee roon markaa ya markee roon ya hal naf oo dhimata waxaasoo laga qaalisan hal naf oo dhimata baa ilaahay agtiisa miisaanka ka qaalisan guri baa burbura iyo xoolaa la baabeeyey iyo mid baa dhaawac aad ka hadlaysaa maxay markaasoo kale waxay u baahan tahay awooddii la heli karo in la isticmaalo oo sharkani intuusan kordhin oo badanin in la xakameeyo meesha way meesha marka shariicadu leedahay faqaatilu allati tabghi hatta tafiya ila amri illah ilaahi marna kuma taliyeen dad mu'mina ha la dagaalamo dad muslimiina ha la dagaalamo isaga laftiisa alla uu leeyahay waa mu'miniin uu leeyahay la dagaalamo ilaahi ma dheheen haddii xal kale loo heli karo hadduu xal kale jiri karo la dagaalamo marna lama dheheen laakiin xal kale aan jirin sidana marka maslaxadu ku jirta arrinkaasi marka waa arrin muhiim ah meelaha awooduhu ka jiraan oo nidaamyada xoog gale ka jiraan qodobka isaga waa daruuri wuxuu leeyahay sheekh Islaam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah waxa ka horeyn kara qodobka isaga ah haday dhici karto intaan lala dagaalamin qolada dhibka waday la kari laayahay hadii la heli karo sidaas ka yar fudud lagu xallin karo oo mesela kuwada dhibka wada in la qabto in la xiro kuwa dhibka wada inta reerka dhan la dagaalami la kuwa dhibka la wada inta la qabto in la laayo ya garaacis haday ku filan tahay in la garaaco xabsi haduu ku filan in xabsi la geliyo taasi hadii lagaga baaqsan karo dagaalka taas roon laana waxa la raadinaya waxa weeye dhibku ka yar yahay in wax lagu xaliyo la rabaa siday ka fududahay in dhibaatada lagu soo afjaro lagu xaliyo la rabaa qaabkaas ay marka shariicadu u tilaabo qaadaysaa oo wax u xalinaysaa طيب oo nusuustu tilmaamaysa waxa inta dheer markaan doonayna inaynu wax maslaxayno markaan leenahay islaaxa laga shaqeeyo islaaxa noocan hadda iska uu mubacatharka oo markay dib dhacaba uu wixii oday wixii culimo la heli karo wixii maartay samadoona hal isu ururiyo la leeyahay waxa ka qurux badan oo soo jeedin ah inay ummaddu meel walba deegaan walba la samaysto hay'ad la yiraahdo hay'adda islaaxinta oo hay'ad siyaasadeed aan ahayn hay'ad ay isugu tagaan culimada dadka muslimiinta hoggaanka dhaqanka inta fiyow aqoonyahanka fiyow inta la isugu geeyo hay'ad la hagaajiyo xafiiskeeda leh nidaamkeeda leh ayadoo u taagan inay maslaxadii islaaxa ka shaqeyso siyaasad ma gasho qabyaalad ma gasho dhibka uu sidii lagu damin lahaa markuu yimaado loogana hortagi lahaa bay ka shaqeysaa waynaga maqanta laakiin shaki ma laha shaqadeedii way taala waana u baahanaa keliyatan waliba ma aha dhibku markuu dhaco in lagu yaacee ka hortag baa suurtagal ah waxyaalaha qaban lahayd waxa kamida مثلا سيمينارو وعيgelin ah gaalada qabata hay'adaha gaalada qabta salaadiinta hoggaanka dhaqanka ayaa seminar loo furaya seminarku markuu dhamaadana xoogaa sahaya la siinaya ya seminarkaasi laba usbuuc bay ku jirayaan waxa laga dhaadhicinayaa wacyigelin iyo yani maslaxada iyo qawaacid sida loo heshiisiyo waxa yaqaaneen baa wax loogu dareeyaa yaa qaban karo waay hay'ad bay u baahan tahay waxa kamida maalan sida loo wada noolaado bulshada u wada noolaato waxa kamida maalan dizaacaadka iyo doodaha sida loo xaliyo ama dadka soo hadlayno waxa kamida majaalkaasi dad badan baa khibrad u leh khibradiisa loo ururiyaa khibradu waa wax qaali ah khibrada hawshan loo leeyahay dad baa ka shaqeeyay meelay ku qoran tahay meelay ku urursan tahay midna ma jirto waxa kamida maalan bulshooyinku waxay kala leeyihiin qabiil walba wuxuu leeyahay curfi u khaas u leeyahay
marka la heshiisiinayo qabaa'isha waxay u baahan tahay in la garanayo qabiil walba acraaftiisa wax laga yaqaan meel laga galo leeyahay maalan maalmahan ku jirnay hawlahaas ayaa waxaan soo ogaanay iyadoo hawshu nagu adag tahay oo aan mari la'ana yaa reeraha qaar waxaan soo ogaanay waa lagu dhaarinayaa haddii la yidhaahdaba inuu gacanta taagi oo isdhiibiba reer baan ugu adkaaday naftaana qabatay saanu xallinaan weynay waxaan idhi kaale kitaab baan gacanta idiin saaray ilaan sir baan helnay moogta inay ka baqaan dhaarta waxaan idhi waa idin dhaarinaynaa odayaashiina waxay yidhaahdeen culimoy annaga xaq iyo baadil midna kuma dhaaranee waxaad naga rabteenoo dhan waa idin siinaynaa dhaarta naga daaya يعني waxay u baahan tahay waxaad gelayso ee aad dhex gelayso reeraha dhaqamadooda inaad taqaano waxay kugu kaalmaynaysaa suluxa iyo waxaad u socoto inaad ka salgaan waxaasoo dhan waxay u baahan tahay marka khibrada in la ururiyo u baahan waayo nooma urursana markay dhibaato dhacdo un baa un la yaacaayo kadibna intaasay ku ekaataa arrinkaasi waa arrin aad iyo aad runtii muhiim u ah muqtaraxna ah hadda waxaa ka shaqeeya hawlahaas oo murmar isu taago wax ka ururiyo hay-ada bannaanka ka yimaada ama kuwa ay soo isticmaaleen laakiin ummaddani hay-ada ay leedaho hawshaa ka shaqeeyaayey ilaa iyo hadda ma jiraan hadday jiraan maalan hay-ado hadda jiro oo la yidhaahdo maalan buxuusta cilmi baadhista hay-adaa jira waayo hay-ado oo muxuu ah islaaxa iyo heshiisiinta iyo ka hortagga iyo ummadda issoo jiidkeeda hay-ada noocaasa inay jiraan soo ma ahayn waa loo baahan yahay maalin dhaweyd oo ay culimmada soomaaliyeed nairobi ay isugu yimaadeen qaybo ka mida ayaa barnaamijkaas la keenay barnaamijka keliyaaba shir laga helay laga qabtay waxaa la isla qaatay in la sameeyo hay-ado noocaasoo deegaamadoo dhan ka howlgala oo ummadduna dhaqaalo ku bixiso hawshaana u istaaga xafiisyadeeda leh sharciyadeeda leh يعني وحوي الله هجاتيو أو بالشدو لهذا إنه آن لنا وهو شاك الشقي ولي ويسعتها وأنا إن شاء الله تعالى وحرجيني إن شاء الله تعالى وقت كذا لصوب نريق دونه هو شاس مركب وحي كميته وحياني وحفظوا ضين لها بكميته آليات كيبالي هذا قضب كاسي أنك قبحوا مسألة كوساب سن إصلاحينتا إيو بالشدة إن لدح قالوا أو لهشيسيو إيو أنت إلهي نقوى في الشيء وحنوسو قد بيا marar badan waxyaalaha keena harjiga iyo dagaalada gaar ahaan qabaa'isha dhexmara iyo kuwa dawladaha iyo nidaamyada dhexmara laftooda waxyaalaha keena waxaa ka mid ah nisaac iyo dood iyo muxuu ahay ishaysi dhul ku saabsan dhulal baa la isku haystaa anigaa leh malihid waan magaalayn maysid baraag baan ka qodi maysid dhulal baa la isku haystaa arrinkaasi waxyaalaha ugu badan oo Soomaalidu hadda qabaa'isha isku disho waa aan wax yar ka tilmaano marka isagana asalahan horta shariicadeenu ruuxu dhul wuxuu ku leeyahay wixii uu nooleeyo dhul reer uu leeyahayna shariicadeenu ma taqaano dhul shakhsi leeyahay bay shariicadu taqaanaa adiguna dhulka ilaahay waxaad ku leedahay meeshaad noolaysood beer ka dhigto ama guri ka dhisato wax isbedel ku samayso derbi ku samaysato shaqo ka qabato dhulka waxaad ku leedahay intaad noolayso ama ma ahe sharci aad u haysato nidaam jiriyo dawlad jira ay dukumeenti sharci ku siiso dhulkaasi milkiye khaas ku jira waa la leeyahay wixii inta ka soo haray oo dhulka ilaahay banaan ah muslimiintu ma kala xigaan asalku horta waa saas ma jirto dhul la yiraahdo dhulkaas inta ka kooban reer hebel baa dago looba soo dhawaan karo anaga dadka uga xaq leh shariicadeenu ma qabto bal qodobka horta qabsada fadal meesha ka bilaabasan waa halka laakiin sida ay shariicadu u dhigtay ومع دليل النبي صلى الله عليه وسلم وحيد من أحيا أرضا ميتة فهي له لولا عيدنا لهين روحي نوليست إسقاله ميت كوحل إلى هذا ولولك أن لقاه الرينين سيد إلهي وأبو ريع لولك ميت بلدها لولك ميت كأه وحق لكل الروحي أهر ريين نوليسته حديث بدن بار النبي صلى الله عليه وسلم تاس مركا
haddii sidaa la yidhahdo waa sida saxda laakiin su-aashu waxay tahay war qabiilooyin oo dhulkan ma kala lihdin dhulkan ilaahay baa leh nin walba intaad nooleysadaad ku leedahay Soomaali ba ku kala joogaysa intaan u akhrino oo shariicadu sidaa weysay inaan idhaahno inta ma ku kala badbaadayaan ma kuma kala badbaadayaan way fiicnaan lahayd intaan isaa u qaataan طيب haddayna ku kala badbaadayna marka dhulkiina la kala sheeganayo waxa jirana jaahiliyada xalna aan laga gaari karin ilaa ama ummadan inta la wacyi geliyo ay dhaqan diineed qaadato ama nidaam dawladeed oo xoog badan oo shuruucdan xoog ku filiyan la helo waxa taagani wax weeyaan dhulkan anaa leh wax kasta igu akhri aayada akhri xadiis akhri sheekhu dhulkan anaa leh reehbel baa la dhahaa fooda wixii soo galiyana xabad baan ku dhufanaya xalku muxuu yahay markaa meeshaan u socdo xalku wuxuu yahay dhulkan qaabka uu yahay in lagu kala badbaado oo intii dhiig daadan lahaa sidaa lagu daayo lagu kala badbaado ayaa ka shar yar in la islaayo dhiig la daadiyo markaasi laba shar baan kala dooranaynaa masaladu ma aha maslaxad iyo ma aha iyo mafsado ma aha laba mafsadiyo laba shar baan kala dooranaynaa in la yiraahdo wardadow dhulka ma kala xigtaana isku foofa oo reerihiiyo isjiira oo markaasi dagaal iyo dhiig daata iyo aafa ay ka dhacdo iyo inaan ninaano war inta uun amaad ka fahmaysaan ama nadaan idin kala qabto uu ka imaanayo war qolobo meesheeda ha ku akaato dhiigga hal la badbaadiyo markaasi waxaan dooranaynaa laba khiyaar midka fudud baan qaadanaynaa shariicadana waxaa ka mid ah maqaasideeda hadday laba dhib isu ka qabsadaan labadubana aad ku qasbanto meel aad uga wareegi kareynin labada dhib midka fudud qaado xal shariico iyo in loo hogaansamo meesha ma yaal waxa yaala inaad tiraahdo xuduudi ma jirto ee islaaya iyo inaad tiraahdo bal kala badbaado oo waxaad kala sheeganaysaan ku kala joogo oo dhiigu ha badbaado labadaas aan marka kala dooranaynaa laba shar in la kala doortana shariicada maqaasideeda ay ka mid tahay saan tilmaamay oo mafaasid iyo sharka la yareeyo labada dararna midka fudud la qaato ka culusna marka meesha laga saago la fogeeyo nusuustay ku sugantahay maxaa yeelay dhib ka weyn ma jiro dhiig muslim oo daata nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix ku oranaya la zawalu dunya ahwanu ala allah min qatl rajul muslim hal ruux oo muslim oo la dilo adduunyada oo dhan oo baabada baa ilaahay kala fudud hal ruux oo muslim oo xaq darro lagu dilo dumar iyo rag midkoona ha ahaado yaa ilaahay agtiisa ka culus adduunyada oo dhan oo baabada marka dhul yar oo laga hadlayo ma aha adduunka oo dhan waxa yaalo dhan hal ruux oo muslim ka qaalis حتى كعبة هذا ركتين قيمة هذا ركتين كعبة سديقة مسلم كا قالس سوما لكن شيء قالي هو نزاع الولاد إن لود هذه ما هدي حتى شريعة لو فتشين كرواية وإن مضنان تلصيه إنه ديقو كلبت بهذا أنت حالك الإلهي ككين تبارك وتعالى قضب كاسوا قضب مهمة نبي جينا صلوات ربي والسلام عليه وحكم إذا أمثلة كتوسيسا رسول كأن صلى الله عليه وسلم markii uu yaani maka joogay kacbada dhulkeedii nabi ibraahim uu ku dhisay qayb kamid ah ayay quraysh ka tagtay ma qaanad aragteen kacbada markay dhisan tahay qayb yar oo waxa jira darbi ku wareegsan yahay oo laakiin aan dhisnay qaybta yartee darbigu ku wareegsan yahay kacbada dhulkeedii buu kamid yahay waa kacbada qayb kamid kacbadii nabi ibraahim dhisay gudahay ku jirtay qaybtaas quraysh markay kacbada dhistay ayaa waxa u gaari waayay kharashkii nafaqadii baa u gaari weeday markaasay qaybta ka tagtay kacbadii intanay ka dhiseen nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaam alayhi markuu maka qabsaday oo dawladii nabi maxamed ka dhisan tahay salawaatu rabbi wasalaam alayhi ayaa wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Aisha wuxuu ku leeyahay Aisha uu sheegay waxay weydiisay qaybta yarta rasuulka Ilaahay oo beedka iyo Kacbada kamid tahay wuxuu yiri ha
waxay tii rasuulka ilaahay maxay u gelin waayeen kacbado dhismaha ugu dari waayeen wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam inna qawmaki qassarat bihim an-nafaqa kharashka u gaari waayay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaas ay qaybta ku gaabsadeen markaas waxay tiri ma sha'nu baabihi murtafi'an kacbada irideeda maxay kor u joogtaa meesha laga galay ilaa waxa weeyaan kor bay u dhisan tahay ilaa intan ay ku qabanaysaa yaani irida caali oo inta laga tilaabsado la gali kara ma inaad jaran jarra ku fuusho way kacbada ma gali kartid maxaa irida laga galay kor loogu qaaday bay tiri nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa'ala dalika qawmuki tolka ba sidaa sameeyay ibn Aisha yaani quraysh ba markay dhisayeen saa u galay oo maxay saa ugu yeeleen liyudkhilu man yasha'u ويمنعوا من شاء ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء كعبدان inaysan noqon meel cid walba iska gasho ninkay rabaana ayagu ay geliyaan oo jaran jarro u saaraan ninkayna rabina ay u diidaan bay ugu tala galeen buu haday dhulka la sinaan lahayd waa lagu durdurin lahaa Soomaali walba iska gelina marka waxay ugu tala galeen meel iyagu maamushaano ninkay rabaana ay saaraan ninkay rabaana uusan gaadhin ba saasay kor ugu qaadeen irida kacbada وحيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض هدانا كبقين غيرك أذكر لتي قريشين جاهلية دي بيكو عصبيه كعبة هدان ديبو هجاتشين وحن كيابين قلوب تودو إنكرتو أي كعان هدانا انتا كبقينين كعبة انتان دميان دبو دسيلها بالنبي صلى الله عليه وسلم مركزان أساسكي إبراهيم كعلين لها الرد ديدنا رول كان لسمي لها بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن وحانا نسمينين وحان كيابا يا انتا الدرين كقادان وحوغا إني كعدون بيشا كيماتو سيدي بو إساقد داي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيدي بو كوغيري هودي فروق قاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فروق قادي كعبداسي إنو سيدي كعليا وحكيابي إن أي دباتا كدلاتو دباتا داسا كويني سيدي دا هيسكا أهاتا ورسولك كتاكي صلوات ربي والسلام عليه كدبنا كعبدا دي تاريخ بيلا هيدو مركي الدنبي حلقي عبد الله بن الزبير أيا مكة مدكة لنا كدب انتو الدميي أيو حقور دي أساس كي نبي إبراهيم بكو علي عبد الله بن الزبير مركي للدلي وحجاج دلي أيوه مركا كعبة انتو دب الدمي يهلكي كعلي وهو يريين الزبير قشم كيس مرة منه كعبة ماشي يدي بانكو علمي هذا سيدي بي مركو كجوكتا الإمام مالك بالوي ديو ليلي كعبة دب موحلنا حلقها الرشيد بن هابا المرنية ماشي يدي مكو عليها وعيري فراك قال عايلي كعبة هذا أدونا هذا أطفرها لقش وحي نقول أنت إن كستو مضحى ويماد إنه يسوون إلى هذا أنا قلنا ما عندنا دومين هيان ورسائل مرة هذا يروح فرح قد بقول سيدا إسكاها